kacaankii Soomaaliya waxa uu dhacay Oktoobar 22 maanta oo kale 1969 waxa uu horkacayay Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo golaha sare ee kacaanka kacdoonkan oo aan dhiig ku daadan ayaa yimid kadib markii la toogtay madaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa toogtay mid kamid ah ilaaladiisa Oktoobar 15 1969 Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu xilligaasi booqasho ku joogay magaalada Laascaanood ee waqooyiga dalka 5 maalin kadib dirka madaxweynaha waxa dalka Afgembi ku qabsaday Jaale Siyaad iyo golihii Tawrada ee dalka Soomaaliya xukumayay 21 sano xumaan iyo samaan ayuu lahaa waxaase ugu xumaa markii Jaale Maxamed Siyaad Barre uu toogtay culimo fara badan kuwaas oo ka hor yimid dhanka dhaxalka qoyska kaas oo ku simay dhaxalka ragga iyo haweenka isagoo laayay culimadii ka hortimid go'aankaasi 23 January 1975 golihii sare ee kacaanka waxa 1976 uu isku bedelay xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed isagoo isku dayay inay iswaafajiyaan diinta dalka iyo sidoo kale aragtiyada shuuciyada iyo hantiwadaaga waxyaabihii ugu waaweynaa ayay kamid ahaayeen ee Jaale Siyaad u keenay in uu burburo isla markaana ay jabhada ku kacaan oo dalka looga saaro ceyro wixii ugu muhiimsanaa ee uu qabtay Jaale Siyaad ee dhiganaha ku jiray ayaa ahaa markii uu sameeyay ama dhisay guddiga Soomaaliga guddigan waxa dhisay golaha sare ee kacaanka si ay u sameeyaan xarfaha ugu haboon ee lagu qorayo Soomaaliga guddigan waxa uu ka koobnaa 22 qof oo xeeldheerayaal afafka ah iyo laba la taliye muddo 22 bilood gudahood ayaa waxa lagu diyaariyay buugaagta dugsiga dhexe xarfaha higaada Soomaaliga oo ka kooban 5 shaqal iyo 22 shibane ololihii horumarinta reer miyiga waa tallaabo kale oo Siyaad Barre iyo maamulkiisu ku guuleysteen macallimiinta xilliga fasaxa loo diro ayay u diri jireen dhulka miyiga si ay dadka wax u baraan waxa kale oo laga faa'iideystay ardayda fanaaniinta iyo cid kasta oo aqoon leh gaar ahaan oo barnaamijkaasi u noqday guushii ugu weyneed ee kacaanka Jaale Siyaad ayaa May 5 1971 waxa uu xirxiray raggii ugu sareeyay kacaanka sida General Salaad Gabeere oo ahaa ku xigeenkii Maxamed Siyaad Barre iyo aabihii kacaanka waxa kale oo la xiray General Maxamed Aynaanshe labada nin waxa laga saaray golaha sare ee kacaanka waxa sidoo kale laga dhigay dhammaan garaadii ay haysteen markii dambana waxa labadoodu lagu toogtay fagaraha iskool Buliisiyo maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan